دي وريحيga magaalada Hargeysa nooga soo warrama Axmed Saciid Cige bal hadda arintu sideexayd waxaan u yidhi Axmedow sheekadan la yaabka leh ee wiilka laba haweena isla habeen aroosay oo habeenkii Isniinta ee bisha July ee ku soo gudbay 31 ahayd oo ayna ka dhacday tuulada Garabis oo 25 kiiloomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada Hargeysa waxa qoray labada wargeys ee Jamhuuriga iyo Haatuf cadadeedoodii maanta iyagoo tagay meesha marka waxa ay boogooda hore sawir ay ku soo muujiyeen labada haweenaha ee isla habeenka la aroosay iyo wiilka aroosay oo mar wada fadhiya oo dhexda ugu jiro marna wada taagan oo dhexda ugu jiro waxay kala soo sawireen labada haween oo kaliya oo mar wada taagan oo sheekaysanaya iyo bay soo sawireen hooyada caruuska oo iyadana markaasi ay soo sawireen sheekaduna Axmedow waxa ay ku dhacday sida wargeeska Jamhuuriga isagu uu faahfaahiyay oo ka soo xigtay Cabdilaahi Ciise Gaboobe oo adeer u ah wiilka in wiilka markii hore gabadh kamid labada gabdhood ee imaka uu aroosay ay sheekaysan jireen dabadeetana in odayaashu ay u soo dooneen in waalidkii gabadhaasi oo joogay sida sheegeen Hargeysa dabadeetana intii ay ku soo maqraayeen in gabadha loo doonayay ayay dad kale u sheekeeyeen bay yiraahdeen wiilka oo maskaxda ka xadeen oo yiraahdeen odayaashu waxba kuuma maqna dabadeetana gabadha kale oo degaray reerkooduna degaraa isla beesha tuuladaasi Garabis ayuu isagii doontay dabeetana meherkii laakiin ma dhicin marka waxa ay noqotay in labadiiba isku soo beegmaan oo ay noqotay labadiiba diyaar yihiin dadka dhaqanka Soomaalidu uu sheegayo hadii mid markaasi laga haro waxay noqonaysaa in marka magti la bixiyo konton halaad la bixiyo sida wargeysku qoray ee uu sheegay in Cabdilaahi Ciise Gaboobe adeeruha wiilka laakiin odaygii dhalay wiilka ayaa wuxuu gudoomiyay in loo arooso labadaba isla mar la meeriyo oo la doono marka ma isku mar baa la meheriyay gabdhihii oo isku mar ayaa la aroosay mise waa la kala duween xitaa meherkii Axmed sida dad badan ku sheekaynayaan oo ka soo qayb galay labada wargeysa Jamhuuriga iyo Haatuf ay qoreen isla mar ayaa la meheriyay kaaga darane wargeysadu waxay sheegeen in 10 daqiiqo ay horeysay mid kamid dabadeetana taasi nasiib ay u heshay in habeendhixii ugu horeeyay iyadu ay hesho oo habeenka ugu horeeya markaasi uu hoydo saygeeda cusub wargeysada ama dadka aad la sheekaysatay Axmed ee arintani goojooga ka aha ma sheegeen dareenka saddexdan qof ninkan wax aroosay iyo labadan gabdhood ee isku markana la meheriyay isku markana la wada aroosay horta Axmedow dareenkooda waxa ka horeeyaba ka dadweynaha oo dadweynuhu aad iyo aad bay Hargeysa maanta u hadal hayaan oo wargeysadiina markiiba waa la marsaday laakiin soo sawiray arinta sheekadan wax ka qoray isla mar ahaantaasina dad badan oo tagay ayaa markii dambe dadku ay wareysanayeen oo dadku way la yaabarayno qof sheekaya shaahid ku arkayna waan waayay oo Xaaji Cabdi Waraabe oo oday weyn oo adogtay oo boqoliyo ka way wuxuu igu yiri sheekaya shaahid arintan kuma arag waxay kale oo markaasi in wargeeska Jamhuuriga uu sheegay inuu xalay ka qayb galay gaafkii oo habeenkii saddexaad ay ahayd ee loo sameynayay dabadeetana in caruuska laftiisa oo la yiraahdo Saciid Maxamed Cabdilaahi ayay wax weydiiyeen wuxuuna uu sheegay in dareenkiisu fiican yahay ku talagalkaygii guurkuna uu ii hirgalay ayuu yiri waxay kale oo weydiiyeen Ubax Saalax Caawad oo iyadu ah in labada haweena mid kamid ah oo ahayd haweenkii iyadu markaasi gabadhii horeysay ee 10 daqiiqo habeenkii ugu horeeyay uu hoyday saygeedu waxayna ay sheegtay markaasi in arooskoodu uu fiican yahay inay isku jecel yihiin Sahra iyadana ayaa la weydiiyay Sahra Maxamed Cabdi oo haweenka labaad iyaduna waxa ay sheegtay inay ku faraxsan tahay 90% sida wargeeska Jamhuuriga ka soo xigtay ay isku jecel yihiin sida ay sheegtay guurkaasi wada jirka Axmed waxaan ku weydiiyay Xaaji Cabdi Waraabe waa run waa dadka ugu daada waaweyn imika dadka Soomaalida ee la yaqaano dhaqan ahaan aad buu uga warhayaa waa kan kula sheekiye shaahid wax loo kala ima soo marin diin ahaan arintani sidee ku noqonaysaa ma u kuur gashay Axmed Xasan Cawkow waa arinta la isweydiinayay dad badan ay isweydiinayeen inay ku jaawareersanaayeen in maanta markii arintani soo shacabtay wargeysaduna ay qoreen in marka Xaaji Cabdi Waraabe wuxuu ku yiri 160 waan ka warhayaa wixii dhacay 160 sanadood ee ugu dambeeyay dad badan oo inta ka sii badanna waan la sheekaysto sheeko iyo shaahid maqal iyo arag toona ma jirto buu ma arag buu Sheekh Maxamed Cumar Dirir oo shuyuuqda caanka halkan ee laga dambeeyo ayaan telefoonka u diray oo aan weydiiyay sheekhu wuxuu igu horta weligay ma maqal mana arag laakiin buu yiri waxa diintu ay sheegaysaa in qofka caruuska ah gabadha caruusada ah ay xaq u leedahay 7 maalmood in ninku markaasi la hoydo taasi ay xaq u leedahay laakiin hadii ay iyagu raali ay iska yihiin oo ay isu tanaasuleen waxa weeyaan buu yiri oo iyagu sida raali ay ku yihiin iyagu say doonaan u qorshaysteen waa ansax buu yiri meherkaasi waana xalaal
marka wax diinta oo ka soo horjeeda ma jirto biguri sheekh dir أحمد سعيد عقيه أو أرنتاسي إيجا ورمجي